ku xirnaaw janaalkeena Ashraf CJ kuna soo biir adiga oo subscribe saaraya si aad wax badan ugu faa'iidid. Mahadsanid. soo dhawaaw muna soo dhawaaw maasha Allah soo dhawaaw xaaladaada ka war alxamdulilah fadhiisa muna maasha Allah mahadsan tahay mar walba sidaan miyaad u labisataa dabcan mar walba sanaa u libis guriga markaad joogto xataa maya guriga markaad joogsaa maasha Allah muna waa gabar guri leh waxa ay dhashay 2 wiil Sabar iyo Axmed maasha Allah gabar ayaan ugu yar iyada iyo ninkeeda waxa ay ku noolaayeen nolol degan ninkeeda waxa lagu magacaabaa Maxamed Shacraabi ninkeeda waxa uu ahaa nin shaqeeyo subaxdii ayuu aadi jiray shaqada habeenkii ayuuna ka imaan jiray iyadu waxa ay ahayd guri joogto waxa ayna xoogaa dareentay cidlo ninkeedana inta badan ma fiirin jirin way cidlootay ilaa ugu dambayn maalin maalmaha ka mid ah ay kulmeen wiil dhalinyaro ah ay deris ahaayeen suuragal inuu Muna ka helay waxa uu ka qaatay telefoon lambarka Muna waxaa dhex maray Muna iyo wiilka wada sheekaysi oo telefoonka ah iyo mesajyo kadib wuu soo wici jiray si uu ula hadlo Muno fariin ayuu u reebi jiray wayna ku sheekaysan jireen hadalkaas ay ku hadli jireen ma aqaano sidoo kale mesajyada ma aqaani inay dabeecad ka tahayna ma ogi laakiin maalin ayaa ninkeeda Maxamed soo galay guriga iyada oo la hadlaysa wiilka wuxuuna maqlay sheekadooda markii uu maqlay shaki ayaa ka galay dhanka naagtiisa kadib wuu xanaaqay wuxuu ka qaaday telefoonka waxa uu fiiriyey mesajyada iyo qofka ay la hadlaysay wuxuu arkay mesajyo hore ay la wadaagtay wiilkaas sax soo maahan waa sax dabcan ninka wuu xanaaqay guriga ayuu ka tagay wuuna baxay ma jeclaysanin inuu furo ilmihiisa dartood mana la soo xariirin 1 sano iyo bar ilmihiisa Maxamed ma fiiriyaa wuu arkaa dabcan gurigu miyuu imaadaa may siduu ku arkaa walaashiis ayuu noogu soo dhiibaa biilka kadibna inuu arko markuu rabo iyada u wado adiga Maxamed bis aragtiin miyaa may mis aragno haddii aad aragtid ka waran haddii aan arko waxaan dhihi lahaa i cafi heshiisiin ma isku dayday adiga may adiga waxaad aad ku samaysay khiyaano ayay ahayd nin kale ayaad shukaansatay hadda waxaad sheegtay inuusan wax kale idin dhexmarin oo hadal ahayn wax kale maan dhexmarin oo hadal ahayn telefoonka la kala hadli jiray telefoon iyo risaalo bis waa sidaas tusaale mesajadiina hore muxuu ahaa tusaale ahaan waxaa ka mid ahaa guriga igu imow waan ku xiisay inaan ku arkaan rabaa iyo waxyaabo kale Muna inuu xanaaq xaq miyuu u leeyahay mise maya xaq ayuu u leeyahay nin kasta oo la khiyaano sidaas ayuu samayn lahaa runtii weliba ka badan ayuu samayn lahaa laakiin ninkaaga ma ku furin maya ilmahaaga dartooda maya furin ilmaha dartood waa saxan tahay sida markaas miyuu idin siiyaa masruufkiina wuuna siiyaa masruuf sababtoo aniga awlaadaas oo keliya iska haystaa wax shaqaamahay guri joogto ayaan ahay hadda waxaan u dirnay risaalo insha Allah waxaan rajaynaynaa in uu soo gaaro mardhow studio-ga adigana waxaad kala socon kartaa shaashada insha Allah maasha Allah soo dhawaaw Maxamed ku soo dhawaaw barnaamijka maasha Allah waay walaal aad ayaad ugu mahadsan tahay maasha Allah fadhiisa Maxamed ku soo dhawaaw barnaamijka waan rajaynayay inaad imaadnaysid maasha Allah laakiin maxaa dhacay markaad soo socotay ilaa aad soo galaysay ma ahayn qof faraxsan maya adiga u maleeyay laakiin hadda xaadir ayaa tahay ugu dambeyn alxamdulilah maasha Allah waxaa kaa muuqata inaad salaad dukatid alxamdulilah mudane aniga ma ahan qofka kugu wacay meeshan aniga dadka way ii imaadaan waxayna iga dalbadaan inaan qofka kale ugu waco studio-gan waana sameeyaa magacayga ayaan kuugu soo diray risaalada laakiin insha Allah khayr ayay noqonaysaa wax walba waxaan rajaynayaa insha Allah inaad bixi doontid adiga oo ii mahad celinaya ma jeceshahay inaad ogaatid qofka kugu wacay meeshan dabcan okay shaashada fiiri maxay tahay sidaan hadalkaad iigu wacday sidaan miyaa fadeexadan iyo ceebtan maad iigu wacday weliba dadkan oo dhan hortooda fadeexada maxay tahay mudane sanad iyo bar waxa aan ku dagaalsaneen maxay ugu sheegtay dadkan hortooda aniga iyo iyada bay naga dhaxeeyeen
waaba qof aan ixtiraam lahayn. may mudane waa ilmahaaga hooyadooda. khalaas mawduucaas waa dhammaaday. wiilkaaga maxaad dhihi doontaa hooyadaad Maya. ixtiraam ma laha? asiga ayaaba arkaayo hooyadiisa inay imaaday meeshaan dadka hortooda. aniga waan ka xumahay runtii. isdeji horta mudane, fadhiiso, waan wada hadlaynaa, wax kasta waan xalinaynaa. aniga waan ku sheegay inaan ka xumahay. sidaan macquul ma ahan. waa wax aan dhici karin inay dadka oo dhan nagu ceebayso. waa wax aan macquul ahayn. maya adiga ma ahan qofka ceebaysan ee waa iyada. maya macquul ma ahan. waan waxaan macquul ahayn. hadalkeeda ma adiga la ma rumaysan tihid karo. qofka khiyaanada sameeyey, ma tihid qofka qaldan. sax waaye, way khiyaantay, laakiin wakhtigan la joogo mas-uuliyaddeeda aniga ayaa iska leh. maxaa yeelay aniga ayaa qabo. fariin ayay igu ka soo dhiibtay, ma dhegaysanaysaa? dabcan. aan gudagalno oo aan akhrino warqadda. allaha nagu toosiyo khayrka. waa dhib ka dhexeeya nin iyo xaaskiisa. ninkayga aan jeclaayo maxamed, allow khayrna waafaji. aniga waan ogahay inaadan ii fiicneen, sababtoo ah waxaan kuu geystay dhaawac daran, mana aqaana xilliga aad ka bogsan doontid. laakiin waxaan rabaa inaan kaaga cudur daarto qaladkii aan kaa sameeyey malaayiintan dad hortooda. xabiibkaygow, adiga waxaad tahay xabiibkayga. haddii aadan i rumaysanin ama haddii aad ii xanaaqsanaato, waxaad tahay xabiibkayga. in badan ayaad igu kalsooneed. aniga ma samaynin arrinta aad iiga shakisan tahay, laakiin waxaa waajib ah inaad ogaato waxa aan rabay inaad i dhegaysatid, balse ma i dhegaysanin. wallaahi alcadiim ma samaynin teleefoonku hadlid iyo fariimo wax ka badan. waana ogahay inay tahay qalad weyn, laakiin wadda khaldan ma ku sii soconin. tamaam. qof fariinta kuu soo dirtay ma joogtaa mise way baxday? inay fariin kuu soo dhiibtay ee baxday macquul ma aha. way joogtaa, shaashadda ka fiiri. maya, weji ka weji ma u arki karaa? haa, way joogtaa. miyaan arki karaa? wax yar i sug aan dhammeeno fariinta. xabiibkayga maxamed, aniga waan ka xumahay wixii dhacay, laakiin ma sahlana qof dumar ah inay soo hor istaagto kaamirooyinkan iyo malaayiintan dad hortooda si ay u qirato qaladkii ay samaysay. qof marwe ah oo laga dhegaysanaya adduunka oo dhan, maxaad u malaynaysaa? sidaasi waxaan u sameeyey adiga xaq ayaad u leedahay inaan ku raaligeliyo. ilaah ayaan kuugu dhaariyey, igu cafi jaceylkeenna dartiisa, owlaaddeenna dartooda, cafiskan ugu wanaagsan, walmusaamax kariim. waan wada hadalnay aniga iyo iyada. ma aysan helin fursad ay kugu sheegto mowqafkeeda. waxay ii sheegtay inuusan iyada iyo wiilkaas waxba dhex marin, oo aan ahayn inay wada hadleen, fariimo ay isku direen, teleefoonka uun bay ka wada sheekaysteen. iyadu waxay iska dareentay cidlo, laakiin xadkii ugu darnaa khaladkeeda ma aysan gaarin. khalad sidee u taqaanaa? haddii khaladkaas adiga lagaa gali lahaa ama dadkaa Mudane, laga gali lahaa mid shaydaan ka ayaa mid nagu ah dhex ka waran. jiro, yuu dembi ka dhacaynin. bini'aadam ayaan nahay. naag nin kala damacday xal ma u baahnaa. wax la xaliya ma jiraan. dad inay soo dhex galaan ma u baahna. dad inay soo dhex galaan ma u baahna. hal mid aan ku dhaho, mushaakilada miyaad jeceshahay mise mushaakil maya? miyaan jeclahay? maya in la xaliyo. dabcan waan jeclahay in la xaliyo. marka aad mushkilad xalisid waxay ka dhigan tahay adiga oo qof mas'uul ah. waxaadna samaysay ficil wanaagsan, waxaa kaa muuqda akhlaaq wanaagsan, qalbi weyn iyo iimaan badan. xaaskaadana waxay u soo bareertay si cad. bes laakiin hal mar aan dhegaysano hadalkeeda. munaay, weji ka weji ila kulmi. wax yar ha hadasho marka hore. wallaahi aniga waa qaldamay xabiibi, waan ka xumahay waxaan sameeyey. meeshan waxaan u imaaday inaad i cafisid aniga. waxaan rabaa xabiibi inaad noo soo laabatid,
aniga iyo guriga iyo reerka kulli waa ku xiisna xabiibi noo soo laabo wallaahi alcadiim ma ka badnayn telefoon kale inaan kala hadlay wax kale ma sameyn markaad sidaas samaynaysay haddii aan ku maqli lahayn adiga ma ii sheegi lahayn maxamed waan ogahay aniga waan qaldan aniga hadalkaaga sidaan ma ku rabi ee weji ka weji aan wada hadalno soo bax meesha ka soo bax waa inaan ku arkaa si toos maxaad ugu jirtaa derbiga gadaashiisa soo bax haddii aan wejigaaga aan si toos kuu arkaynin oon kuu qaabilaynin ma kula hadlaay barnaamijka waa sidaan qof walba waxa uu ka hadlaya derbiga gadaashiis anigana waan kuu furaa haddii aad nagu waafaqdo inaad iscafinaysaan laakiin haddii aadan cafinin ma cafinaayey ma ahan sidaan cafin inay dadka hortooda imaado ma ahan Okay, wax fiican isdeji. inay adiga Tamam, ku imaado isdeji. ayaaba khaldan okay inaad imaadid barnaamijkan oo aniga iga dacwootid oo adduunka oo dhan lagaa daawado kulli waa khalad hadalkaagana waa khaldan yahay aniga waxaan kuu dhiibtay carruur markaan rabo carruurteeda in aan arko waan kaa soo wadanayey adiga iyo anigana si toos ayaan u hadli karnay waxaad dadka hortooda ka sheegtay wixii dhexdeenna ahaa sannad iyo bar waana kaa aamusnaa ciil dartiis hadda ayaaba ka sii dartay wallaahi shallaay ayaan taaganahay maxamed waana ceebaysay laakiin adiga keligaa ayaa ceebaysan ma ahan aniga qofka ceebaysan maxamed dhibkaas magacayga ha ku soo darin magacaaga hadda ilmahaaga magac noocee ayaad u reebtay magac xumo ayaad u keentay ilmahayga way barbaarayaan waan guursanayaa maxamed dhibkaas dhan waxaan u maray inaad i cafiso bes way dhammaatay hal ayaan guursanaa laba ayaan guursanaa saddex ayaan guursanaa ilaa 10 ayaan guursanaa iyaga ayaa i barbaarinaya xaq ma u carruurtayda lihid inaad 10 guursatid 4 ayay mudane ku ogoshahay aniga shareecada micnahayga waxa waaye inaan guursanayo naagta aan rabo qasab maaha inay hooyadooda barbaariso dabcan way barbaarayaan isdeji mudane waan ogahay waxaad u socotaa xal waxaadna iga dalbatay inaan cafiyo waxaad i dhahday qalbiga u fur adigana waxaad igu xujaysay inaan cafiyo si aad derbiga noogu dhaqaajisid oo weji ka weji aan isku aragno soo dhowow fur qalbigaaga waa loo baahan yahay iska cafi maya macquul maahan ilmaha iyada ee ii dhashay tan ugu yar waa 11 sano jir 2 sano ama 3 sano kadib waa guur haddana haddii ay aragto wiil dhallinyaro ah oo ka qaata telefoon nambarka oo ugu sheekeeya jaceyl iyo waxyaabo qurux badan sidii ayay samaynayey haa way samaynay su'aal ayaan ku weydiinayaa ma waxaad ka shakisan tahay in ay wax kala sameeyeen iyada fursad ayay haysatay oo hadal ay ku furato waxay la hadli kartay saaxiib ama waalidkeeda ay la nooleed waxay u sheegi kartay wax walba waxayna dhihi kartay sidaan ayay wax u dhaceen markaas iyaga ayaa kala saari lahaa sax iyo qalad xataa walaasha ayaa la hadli kartay iyo ehelkaaga kale maxaa u sheegtaa waxaa maskaxda kaa qaaday labadii erey ee quruxda badnaa sida waad qurux badan tahay waa kuu xiisay soo jiidasha ayaad leedahay iyo waxyaabahaas mawduucaas iyo inaad ninkaas la kulantid iyo inaad la hadashid kulli waa qalad khaladka maxaa waaye abu axmed ii sheeg khaladka maxaa waaye waxaa qalad ah in mawduucan laga hadlo calaa kulli xaal mawduucan waa dhammaaday khalaas aniga sannad iyo bar ma la hadlin mana rabo inaan la hadlo waxaan keliya ogahay in xaas labaad aan guursanaayo mawduucan waa dhammaaday waxaad taas iiga daran wejigayga meel aan geeyey ayaan la ahay ceeb daraaddeed waad ii ceebaysay maadaama aad furfurtay fadeexadan oo ustaadka aad u imaaday maanta kadib ma arkaysid carruurtaada khalaas mawduucaas waa dhammaaday aniga miyaa sabab u ah midaas maya mawduucaas waa dhammaaday ugu dambayn waa sidaan kuu sheegay carruurtaada ma arkaysid waxaan ku noolaanaynaa nolosha tan ugu fiican khalad weyn ayaad samaysay khaladkaad iga gashay maaha mid aan cafin karo runtii khalad weyn ayaad samaysay maahan waxaan cafin karo carruurtaadana ma arkaysid carruurtaada hooye noocee ayaa tahay oo carruur hadda korin inaad la karto hadashid maa rabtaa istuudiyoga dhexdiisa dabcan okay ka qaada derbiga dhib ma lahaan hawada hadlaane tartiib u fadhiiso
dhinacan fadhiiso waataas iyada si toos ayaad ula hadli kartaa xaggeed u socotaa wakhtigan la joogo waxaan fahmi la'ahay waxaad sidaan oo dhan u samaynaysid maxaad u samaynaysaa sidaan oo dhan yacni qaladkii aan kaa galay inaad iga cafisid inaan ku cafiyo dadkan oo dhan hortooda inaan ku cafiyo aad u imaaday maasha allah allahuma salli calaa maxamed kaamirooyinkan iyo idaacaddan iyo dadkan hortooda waxaad u imaaday inaan aniga ku cafiyo haa calashaan qaladkayga dartiis kaamirooyinkan dadkan oo dhan hortooda in anaga nalaga daawado adduunka oo dhan ma waxaad u samaysay ilmaheen in ayna dhahaan waa kaay aabbo hooye waa taas calashaan qaladkayga inaad iga cafisid le yacni qaladkaaga in aan kaa cafiyo oo keliya ayaad u samaysay haa dabcan inaa i cafisid istuudiyogan aad imaaday idaacaddan lagaa daawanaayo kulli way khaldan tahay xataa noloshaada ayaa khaldan inaan isku naqanaa rabtaa oo baybay aan ku dhaho subax walba oo nolosheena caadi ay naqataa rabtaa miya adiga oo fadeexadan sameeyey inaan ku fadeexayo uma imaan ani cafisaan kaa rabaa qaladkii aan galaaga iga cafi saan fadeexa maahan abu axmed adiga maahan qofka ceebaysan waa iyada maya kaligeed maahan saan fadeexa maahan saan fadeexa maahan fadeexa maahan saan fadeexa sidee u taqaanaa fadeexa sidee u taqaanaa haddii sidan aysan ahayn mudane iyada ma aysan helin meel aad ku wada hadashiin si ay kuu raaligeliso ilaa haddii aad leedahay maskax ha maskax haddii ay kuugu jirto waxaan ku dhihi lahaa wax baro ee jaamacad al azhar aad laakiin adiga eber ayaa tahay nabadgeli ciyaalkaaga bes khalaas waan kuu sheegay haddaba anigaa kaa wadanaayo ciyaalkayga maya miiga qaadanaysid ciyaalka insha allah insha allah mudane soo bax horta aniga isoo raac soo bax mudane waa kaa qaadanaya raac mudane insha soo allah bax horta makaan mudane khiyaanada aad igu samaysay cafis ma leh wax kasta oo la sheego ma ku cafinaayey khiyaanoley ayaa tahay maxamed waxaan ku weydiinayaa hal su'aal wax yar naxariis xataa qalbigaaga ma ugu jira miyaa aad ku cafisid may bes miyaa ah macquul ma ahan macquul ma ahan maxamed aniga ayaa mas-uulka ah ifiiri horta maxaa yeelay barnaamijkan anaga ayaa aas-aasnay hal mid iga ballan qaad inaad carruurtaada ku ixtiraamaysid haddii aysan ka murugaysnayn qaladkii ay kaa gashay ma imaan lahayn kaamirooyinkan iyo 300 qof hortooda kadibna malaayiin dad ayaa daawan doono si aad u cafisid horta kii cafis ahaa ma jiro go'aankayga hal mar ayaan qaatay laakiin waxaa edeb ah oo aniga edebtayda ay tahay inaan ku ixtiraamo ciyaalkeeda midna xasuusnow haddii aan guursado ciyaalkayga waan kaa wadanaa kadibna naagta aan guursada ayaa ii xafidayso taas ogsoonow middaas ogsoonow in aan kaa wadan doono ogsoonow fiiri hadda ma cafinaysid miyaa maya hay mawduuca uu dhammaaday si wanaagsan waad ula dhaqmaysaa soo maahan maya okay maxaan sameeyaa muna aniga waan dadaalay hadafka barnaamijkan waxa waaye familka isdagaalsan inay isku noqdaan balse aniga arrintaada waan ku guuldaraystay waan jeclahay qanacsanaantaada waad ku mahadsan tahay imaanshahaaga insha allah khayr ayay noqonaysaa mustaqbalka xataa isku day inaad cafisid oo aad isku laabatiin walmusaamax kariim garabkaaga allaha galo maca asalaama umu axmed waan ogahay inaad niyad jabsan tahay isdeji sidoo kale nin rag oo arkay xaaskiisa oo nin kale la hadlayso oo fariin kula hadlayso inuusan u dulqaadan karin aniga run ahaantii waan ka xumahay inaan ku fashilma arrintan waxaad tahay qof isku kalsoon dadka ayaana kuu qireen inaad tahay geesiyad sababtoo ah waxaad u imaaday inaad qaladkaaga qirato khayr ayay noqonaysaa insha allah insha allah maca asalaama yacnii aniga marka hore waan dareensanaa inuu cafinaynin ninkeeda marba haddii uu ku arkay khayaano nimanka haddiiba naagahooda khayaanaan ma cafiyaan qaas ahaan nimankeenna calaa kulli xaal qisada halkan ayay ku dhammaan